بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا ليال دمانتين وحويان وحن كل سلام يا سلامتي إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن إن شاء الله تعالى جالستين معتا إن إذن لو ذاقه أما هل كان يدي كسو قد بيه ما نصير والله يرهدو أذيك يا عجبيه oo hore aan u tiriyay horeyna aan u duubay runtii laakiin maadaama ay maanseeska dib badan tahay inaan dib u duubo ayaa waxa weeyaan la iga codsaday runtii maansadan waa maanso sida ka muuqata si aan ahayn anigu aan ujeedada ka lahaa laakiin waxaan ku halqabsanay iyo waxaan kaga hadlayay marka la fiiriyo dadku sida muuqata bay inta badan ay ka raacaan waana la oran karaa waxa weeyaan waa maanso waxa weeyaan seef laba afle ah oo mar ka waramaysa sida muuqatay daahirka ah marna ka waramaysa waxa weeyaan ujeedadeedii kale aan hore u sheegay gabagabadiisana aan ku sheegi doono ujeedada aan ka lahaa maansadan iyo waxay ku saabsan tahay laakiin ujeedada dadku way xiiseynayaan anigana waxa weeyaan kolka hore aan gaashaanka ka dhigan jiray ayaan idin hormarinayaa oo waxay ammaanaysaa maansadani haweenka ayay ammaanaysaa waxaan sawirayaa nin Soomaaliyeed oo jaalaaday gabadh ama xaaskiisaba ah gabadhu inay tahay iyo inay ahaynba wallahu a'lam laakiin gabadhan ayuu ku mirqaansan yahay uu amaanaya dabcan waxa uu ku amaanayo waa wixii isagu uu ku qancay iyo quruxdii waxa weeyaan uu ku qanco gabadhan oo ku rabay quruxdu waxa weeyaan shay la isku waafaqsan yahay ma ruux ba dhinac buu ka arkaa ruux dhererka la quruxa ruux gaabnida la quruxa ruux dhoobnida ruux buurnida ruux qalaafada ruux caga toosinida ruux waji ballaarnida ruux indhayreeraanta ruux indhaweynaanta ruuxba quruxda dhinac buu ka arkaa anu sibaan u aqaana adiguna sibaad u taqaana saaxiibka sibuu u yaqaana hebel kale oo saaxiibkaana isna si kale ayuu u sawiri lahaa hadii la weydiin lahaa toban nin oo meel wada joogtay inay isku ra'yi ka noqdaan lagama yaabo hadii haweeney ay soo agmarto leeyahay haweeneyda ka warramana waxa weeyaan inay ku aragti duwanaadaan ayaa laga yaabaa marka waxaan rajeynaa inaad la yaabin dee ninkan odayga ah waa nin barakaysan sida ka muuqatay qanaaca waa ka muuqata iyo isku kalsooni aada ayaa ka muuqata siduu u amaanayay markaan fiiriyay xaaskiisa anigu erayadan leeyahay iyo hadalkiisa isku hagaajiyay mooyaane waxa aniga igu saabsan waxa weeyaan maaha fikraddu waa fikradii ninka odayga ah iyo aragtidiisu anigu erayadii gabayga ayaan isku toostoosiyay marka wuxuu leeyahay gabar yahay calool xumo iyo coonta aad tahay ayaad igu cajabiso markaan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya gabar yahay calool xumo iyo coonta aad tahay ayaad igu cajabiso markaan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya gabar yahay canaagiyo uqdadaada buuxdiyo indhahaaga cawlkiyo carabkaaga dheer iyo caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso marka aad candhuuftiyo cay igu asqaysaan farxad caga jugleeya gabar yahay canaagiyo uqdadaada buuxdiyo indhahaaga cawlkiyo carabkaaga dheer iyo caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso markaan yara cidloodaba camalkaaga liitaan cindigayga geliya caafimaad la'aantani ayaad igu cajabiso marka aad candhuuftiyo cay igu asqaysaan farxad caga jugleeya timahaaga coofka ilkahaagan cagafta lugahaagan cuudkee xubnihii aan celinayn socodkaa lugahaagan cuudkee xubnahaaga culisee socodkii ka caagaan kugu soo calmadayo adigay cajabiyo cadarkaad karhaysa cajiskayga biya timahaaga coofka ilkahaagan cagafta lugahaagan cuudka xubnahaaga culisee socodkii aan celinayn kugu soo calmadayo adigay cajabiyo cadarkaad karhaysa cajiskayga biya ereygaaga ceebta hadalkani cabaadka yartii igu casuumtaay curadii doqmahay cudur lagu tilmaamiyey caqligayga deeqde cidlahaygu baydhay ereygaaga ceebta
هذا الكني عبادك يرتي يقول عسومتاي عرضي دقمها أي عذر لقو تلمامي عقلي يقدق ذي الله يقول بايلهن مركا العطابتاد يعنانا نيساد يقول سيع العلسان فرحة عقو جبلية مركا العطابتاد يعنانا نيساد يقول سيع العلسان فرحة عقو جبلية موقتها عواني هاي وحان كوكو عسي يبوى على عالكاكي فالحمى عصيباي عرف لغا فوقيي عدي قرندي ليي وانت بدن هلاكتوي عريدكاغا ويني دبنيهي عن علينين qufnaanta gaabnida inaad ciidda hoostahay ayad igu cajabiso caawimaad la'aantan caku kugu jeclaada foolxumo cusaybay araf laga fogeeyay cidi qaran dileeyay unta badan halaagtooy ciridkaaga weyne dabnihii aan celinayn qufnaantaada gaabnida inaad ciidda hoostahay ayad igu cajabiso caawimaad la'aantan caku kugu jeclaada cududaha jirfaystiyo cunahaaga dhuxusha iyo caada xumidaad dumarka gacag badiso caynkaaga inaan helo dhaxaanu qarare calangur bal ila taag xuduudaha jirfaystiyo cunahaaga dhuxusha dumarka gacag badiso caynkaaga inaan helo dhaxaanu qarare calangur bal ila taag inay yahay casiiski hadduu caynkan yeelo calafkaaga ka dhigay inay yahay casiiski hadduu caynkan yeelo calafkayga ka dhigay cilmiga ku duugana cishadaynu kulanaba ciil aynu dhimanne cashiqayna noo dhor maalinteenu kulanaba waa inaan ciil dhibanaaba kulay isaga sidan ay farxadiisa ku jirta farxad iyo nin ubax u baahan maaha ninkan wuxuu leeyahay cishadaynu kulanaba ciil aynu dhimanne cashiqayna noo dhor inay yahay casiiski hadduu caynkan yeelo calafkayga ka dhigay waxaan oo dhanba haddii isku ka daray wax uu leeyahay waa casuumad gaara oo Allah subhanahu wa ta'ala dhankiisa ka helay cilmi baa ku duugan xigmad baa ku jirta waxaan oo waxa weeyaan amaanaan ku siiyay ilaahay ku barakeeyay xikmad baa ku jirta marka cashadaynu kulanaba ciil inaan dhintaan rabaa buu anigu sidaas baa ay caafimaadkayga ku jira cashadaynu kulanaba ciil aynu dhimanne caashiqayna noo dhor marka maxaad soo dhan lahaydeen ninkaas odayga ah ee Soomaaliga ee gabadha sidaas u amaantay gabadh intaasoo sifo oo waxa weeyaan xumaan isku darsatay wali uu ku qanacsan yahay uu og yahay in intaasoo dhibaato qabto laakiin uu ku qanacsan yahay Soomaaliya waxa weeyaan maasadu waa maasadii qabiilku ku saabsaneed oo qabiilada sidaan ku nahay ilaahay aan ka cabsano qabiil sidaas inuu u qoran yahay wala og yahay intaasoo balaaya iyo ka badan baa ku sii hoos duugan aan ka xumaa inaan gabadh ku matalo sababta loogu matalayna waxa weeyaan de rag iyo gabdhihiiba ayaa isku imtixaaman marka in gabadh laga dhigo si indhuhu u soo jeestaan waxa weeyaan bay ila noqotay laakiin qabiilada Soomaaliya sida ay si ka daran ayaa tiin idinkoo wala waa qoran oo qabiiladu waa waxun oo qabiiladu wax weeyaan in burburiyay way ayaad hadana ku dhagantiin iyada ayaa waxa weeyaan isku xiriirinaysiin iyada ayaad isku xiriirinaysiin iyada ayaad isku wanaajinaysiin iyada isku xumeynaysiin marka musiibadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda ha ka koriyo wixii gafa ilaahay ha naga saamaxo ilaahay aan ka baryeena inuu naga saamaxo wixii tusaaleyn iyo toosin waxa weeyaan ansaxayna waxaan rajaynayaa inay faa'iido inoo dhaxa inay noqoto ayaan rajaynayaa dumtum في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.